madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wajahaya cadaadis gudaha Mareykanka iyadoo haddaba maxkamadaha Mareykanku ay isku dayayaan inay xakameeyaan baaxadda awoodda uu adeegsanayo. Tallaabada ugu horeysa waxaa la doonayaa in gacantiisa laga saaro awoodda ugu sarreysa ee uu dunida u adeegsanaya oo ah cashuuraha taa oo khalkhal ka dhex abuurtay Mareykanka iyo xulafadiisa. CNN oo ka waramaysa xaaladda wasaaka uu wajahay Donald Trump ayaa sheegtay inuu nacalad iyo aflagaado kala daalay maxkamadaha ku mashquulsan inay awoodiisa xakameeyaan, iyadoo xitaa warbaahinta Mareykanku ay markii ugu horeysay si cad u baahinayso inuu Trump kala kulmayo burbur gudaha Mareykanka. Laakiin wax kasta gudaha Mareykanka ugama socdaan si toosan, gaar ahaan marka la tixraaco cadaadis kasta oo gudaha lagaga furo. Trump waxa ugu dambeyn la arkay isagoo qaadanayo go'aamo uu ka warwareegi jiray markii ay miiska xafiiskiisa muddo saarnaadaan. Faylaal ay diyaariyeen Pentagon-ka Mareykanka oo la xiriiray howlgalkii Venezuela waxaa gudaha lagaga furay mudaharaadyo ka dhan ah howlgalkii ICE ay ka waday gobollada ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ah, waxaana si fudud loo burburiyey qorshihiisii ka dhanka ah soo galootiga. Tani waxay ku khasabtay inuu saxiixo howlgalka oo la fuliyo. Kadib waxaa dhacay shirkadaha Mareykanka ee shidaalka inay la wareegaan goobaha shidaalka ee Venezuela. Mareykanku waxa uu leeyahay taariikh ah inay dhacdooyinka qaar ku lug yeeshaan shirkadaha. Taariikhda marka dib loo raaco badanaaba dagaalada uu Mareykanku qaaday in ka badan arrimo siyaasadeed waxaa ku dhex jirtay ganacsi. Tusaale ahaan, Faylase Epstein waxaa lagu arkay inta uusan dhicin kacdoonkii Liibiya ee Mareykanku hogaaminayay ay diyaariyeen shirkado ganacsi oo Mareykan ah kuwaasoo doonayay inay la wareegaan hantidii hogaamiyihii Liibiya Colonel Muammar al-Gaddafi. Arrinta Liibiya waa isku darka doonista shirkadaha Mareykanka iyo Israa'iil oo ka hortagaysa hamigii Colonel Gaddafi oo raadinayay nukliyeer iyo isku xidhka awood ka dhan Israa'iil. Mar kale isla xaaladan oo kale waxay ka taagan tahay Bariga Dhexe. Waxay shirkadaha Mareykanku doonayaan in la joojiyo helitaanka shidaalka jaban ee Shiinuhu ka iibsaday Iran, tan awoodeed oo la xiriira dheelitirka Bariga Dhexe, ilaa Israa'iil oo doonaysa in meesha laga saaro nidaam kacaan tab iyo xeelad kastana u maraysa in Mareykanku uu ku lug yeesho isbeddel nidaam oo ka dhacay Iran. Markii ay maxkamadda sare maanta digniin siisay Trump, waxa u muuqday in loo sheego warcad oo ah ma joogtid xaruntaada ganacsi. Waxaa xigayna ay ahayd warar lagu qubay warbaahinta Mareykanka. Waxaa soo baxay Trump oo ogolaaday inuu sheego wax laga doonayo oo ah Mareykanku uu weeraraya Iran. Ma cadda Trump inuu dadejin doono duulaan lagu qaaday Iran xilli waaxda dagaalka Mareykanka ee Pentagon-ku ay toddobaad ka hor gudbisay qorshe weerar oo Mareykanku ka fuli karo gudaha Iran. Haddaba aan sugno saacadaha soo socda iyo maalmaha ku soo aadan.